kulanti wacan oo wanaagsan idilhaantiinba meel kasto aad dunida dacaladeeda naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar oo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed kaasoo idinkaga imaanaya magaalada Suus ee waddanka Netherland daawadayaal barnaamijkan ayaa waxa soo qabqabiyay jaariyada Soomaaliyeed ee waddanka Holland gaar ahaan magaalada Suusti daawasho wanaagsan وسلامتي لما ضبط السوس عميصور بارن إيه مالها فوق لوي مد مرتدى شرفت له قبله إلى الجري هوشة دق السوس يا بارن يا عميصور آدي يوم هتسيني أريجو أسأل أحمد عوكي وهذا مقعها مدارة السوس وحليها الدولة هجرته هوارته ولقيت دولة سيدا ولا قدال أنا وحلنا ودعاء وأدعينا دولة عن سودا أقويانا الصومالية أو شرعيتنا إسلام كاسنا كشقين جت سفارة الصومالية وطن كبلجيم كا إمن كنا أودو دا حقوق دا عروضة إسلام كاسنا مدحكا أور كليرا دا صومكان وحنجعل هاي إنه ينفر بدنا عروض هالكان كله إنه يكفى إذا سندونان مرو شمسه أو هالكان كسر جديد دون تقطب قيمة له أو كسب سن لنا عروضة يولي بدنا عايز قلش iyagoo xataa ku qabanaya ay runtii ahaayeen dad maarta firfircoon marka aad ayaa ugu mahadsantihiin caawar inaan halkaan isla joogno waxaan kaloo aad maaragtay qudbo runtii barnaamijyada noo soo socda iyo fanaanka weyn iyo fanaaniinta kaloo jooga cabdi baadil waxaan u maleynaa dadka oo dhan inay qudbada ay dhibsanayaan laakiin runtii horta wax lagu farxo maanta maadaama dawladeeni ay dawlad aan ku meel gaar dama aysan ahayn hadal waxa la yiri haan ma buuxsho ayaamahan af Soomaaliga ma soo fiicnaanay aniga marka hore reer Shaamo meel la dhoo xaafad la dhoo waxa marjib ku taalan ka imaaday marka laakiin waayadan terminology-ga waa saaidaya marka ayaamaha waaga hore anaga waxaan dhigi jirnay maaragtay ciyaal xamar marka ahayn dadka ayaa ka hebel reer koraad waay هذا أيام أنا قرأ على هذا أنا بكسر الكرات حاولنا إن عندنا هذا قليل رنتي بحن آثرت وفرح سنة هاي إن ما أنت مارت أي سنة هين دولتنا حسن شيخ مدفعينها جواري إيوه ساعد فرح شردون وأنا يقول رنتي قبل ساعة بدي أنا قبل عن شفي عن قفك كليه وهذا سدح داس ما دحض وصل رئيس وطنك عن بيرسونال يسون قانون marka in ilaahay horta marka ugu horeyso wax walba waxa ka muhiimsan dibkii la soo maray Soomaali dib baa soo martay laakiin hadii la fiirsho dibka marmarka qaar kood hadaadan dib marin qofka maaragtay kuma raaxaysan karo nolosha waxaan u maleynaa dad isla qabweyn cali sidoo sheegay iyo noloshii aan soo marnay ilmaha maanta Soomaaliya ku dhashaa maalin walbeeto ama iyagoo ilmanimadooda markay ka faa'iideysan lahaayeen oo dagaalka dhacay runtii waxa qiimo mudan hadii xuquuqda ilmaha la fiirin lahaa inaan dagaalba dhici lahayn sababtoo aabbo walba oo qori qaata ama hooyo walba oo wax ay fiirsadaan adduunka ugu jecel waa wixii mar ayaan soo duubay marka runtii hadaan ahayn inaan lagu noolaanayn laakiin haddana markuu ku yiraahdo afarteedii ilmood kaliya ka socdo midba mar baan jid ku soo duubay marka dhibaatadaas in ilaahay maaragtay ummadeena ka badbaadiyo ilmaheena ka badbaadiyo hadaa ilmaha xuquuqdooda iyo noloshooda aan fiirinana waxaan ka rajaynayaa dawladda runtii dad badan oo aqoon leh waayay dad badan oo Xasan Sheekh nin ku soo dadaalay way dhalinyarada qaar kood wax soo baray in ilaahay maaragtay iyagana waxaan ka codsanaynaa xuquuqda carruurta oo la yiraahdo Soomaaliya ma saxiixin waa waddanka kaliya markii Mareykanka la fiirsho inay saxiixaan taas waa ka codsanaynaa قرب السحرين تيديو إنكو ساعدين أيامنا ما تدن كسوغناي قرب السحرين تيديو إنكو ساعدين أيامنا ما تدن كسوغناي
sama wadaha andalay sinanta yaqaan ayaa calanka noo sigeen soomaalay kaca kaca usara kaca madaxweyne xasan sheekh maxamuud شيغو أفر والحاضو حاكوتال وكحبان يحو قصر وكحبان يحو قصر وكحبان يحو قصر مدي صوماليد أجانبك كانوا مستي ولا حالف شيء حبيه ولا حالف شيء ولا حالف شيء إن الحي يرتاحوا قصر حبيه ولا حالف شيء إن الحي يرتاحوا قصر حبيه ولا حالف شيء وعيدة عيدة صومالي وذا عيدة وعيدة عيدة صومالي وذا عيدة على الفرن صومالي وذا عيدة وعيدة عيدة صومالي وذا عيدة وعيدة عيدة صومالي وذا عيدة على الفرن صومالي وذا عيدة صومالي على كذا عين كيسة عدن يقولوا قلوب يا عدن عدن يقولوا عجيب يقولوا كيسة صومالي على كذا عين كيسة عدن يقولوا قلوب يا عدن عدن يقولوا صومالي وذا عيدة كل علينا عافمدوي الصومال دولة نورك يا صومال وذا عيدة فرحت يا مصر عافمدوي الصومال دولة نورك يا صومال وذا عيدة waxaanu gudugelaynaa dhinacii khudbadaha marti sharafta maadaama marti sharaf aad u fara badan oo nalagu casumay xafladani iscali ku soo dhawaaw si markaasi khudbadaada halkaan aad ugu jeediso maantii xafladan caawa sida quruxda badan loo soo abaabulay oo ay ka soo qayb galeen dad Soomaali ah oo ka yimid waddanka Holland dhinaciisa kala duwan dadka ka soo qayb galay iyo dadka soo abaabulay intaba aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan si gaar ah jeclaa inaan ugu mahadceliyo asli faadumo iyo taajirow runtii oo ah dadka xafladan quruxda badan ay soo abaabuleen abaabulkoo keliya ma qurxanee runtii dadka ka soo qayb galay oo Soomaalida laftigoodu aad iyo aad ay u qurux badan yihiin Soomaalidu runtii intaan anigu ka xusiisto kulley dad kale odayaal ah oo iga waay aragsanna way joogaan runtii waa dad waxay ahaan jireen aad iyo aad u qurux badan waxaan ahayn dad sharaf leh dad karaamad leh adduunka laga qiimeeyo laakiin runtii waa ka xunahay dhibaatadii nagu dhacday oo muddada dheer aan ku jirnay insha Allah waa iska dhamaan doontaa dhibaataduna annagoo kaliya maaha adduunyadoo dhan dhibaato way soo martaa waa la dadaalaa waa laga baxaa laakiin tan weli waqtigeedii yaa iska dhiman runtii welina aad iyo aad dadaallo fara badan ayaa Soomaalidu wadaa inaan dhinaca negatiifka ama dhinaca liita kaliya wax ka fiilina maaha intii dhibaatada Soomaaliya ka jirta muddadii dheereed oo runtii dawlad la'aantu ay jirtay mar walba waxaa jiray dadaallo fara badan dad Soomaali ah oo isxilqaamay ayaa mar walba dhibaatada Soomaalidu ka damqanayay oo isku dayay inay xal helaan isku imaanayay shirayay intii karaankooda mar walba tallaabo ayaa hore loo soo qaadayay waxaa ugu dambeysay tii madaxweyne Sheekh Shariif ayaa ugu dambeysay kadibna waa tii la doortay baarlamaankii
dabadeetana baarlamaanka ay doorteen madaxweyne xasan sheekh xasanna markaa uu soo magacaabay prime minister saacid waxaan rajaynaynaa inay noqoto dowlad karti iyo aqoon leh oo aan la shaqayno oo dalka dhibaatada ka saarta runtii waa wax lagu farxo laakiin dowlad kaliya waa ognahay soomaaliya maanta dhibaatada ay ku jirto dowlad kaliya wax ma qaban karto marka annaga dhammaanteen waxaana loo ka baahan yahay dadka soomaalida runtii inaan si wanaagsan u fikirno oo aan had iyo jeer aan isku dayno intii karaankeen ah sidii aan uga qayb qaadan lahayn inaan dadkaas soomaalida oo waddankii jooga oo dadaalaya waa ognahay dhibaatay soomaaliya ku jirto dowlad aan lacag haysan dowlad aan askar haysan dowlad aan ognahay xaaladda ay ku sugan tahay kaligeed waxba ma tari karto marka dadka soomaalida oo dhan meel kastay joogaan waxaan ka codsanaynaa dadkaas sidii lagu saacidi lahaa sidii waddanka dhibaatada looga saari lahaa runtii iyagu waa dowlad laakiin dhammaantiin waddanka waa leenahay qof walba mas-uuliyad ayaa ka saaran marka waxaa la rabaa qof walba taas inuu xusnado waxaan jecelnahay filayo in si aadaad u dhuuxdeen khudbadiisa dhinacii khudbadaha ayaan weli ku guda jirnaa waxay noo soo socda heese wadani ah iyo weliba barnaamijyo kalo shirib iyo buraanbur intaba caawa halkani waa lagu soo bandhigi doonaa iminka waxaan jeclahay inaan mikrofoonka kusoo dhaweeyo mid ka mid ah dadka si aada ugu dhaqdhaqaaqa soomaalida waddanka ku nool khaasatan haweenka si aada xuquuqdooda u raadisa isla markaasna si aada ugu hortagta gudniinka fircooniga waa gabadha la yiraahdo Sahra Naalaye si markaasi maadaama haween fara badan halkaasi ay joogaan xafladan ay kasoo qayb galeen waxaan filayaa in maanta ay jaanis u heleen in markaasi ay kula kulmaan halkaan isla markaasna khudbadda ay u jeediso Sahra Naalaye kusoo dhawaa khudbadda كل وقتما وسلامتهم قبل حبوك عن بحاج من فرعون ما نوع كسر جنين كيان كسر ورجل waxaan horta dhammaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed oo halkaan iskugu yimid waxaan kaloo mahad u celinayaa muxuu ahaa dadkii arrintan soo qaban qaabiyay walaashay asli walaashay Faadumo intii kala gaar ahaan gabdhaha Suusa gabdhaha Amisport waa gabdhahan ku faano ilaa gabdhaha baaran degan waa gabdho isku xiran runtii waxay sheekadan hadda bilaabeenna ma aha waxa kaloo muxuu ahaa in la xusaa fanaaniintayna sida Xuseen Carab ملكي يا عبد البادل وآد عدتي سوجع لهاي محاها هاي إني عوضة محاها هاي وحي إنه قلت لك لأن الشيء دور حتى نصور نقدم معنا يعني أنتوا قمت لك الخطبات دار لكن مركو هروح عن ده كان معنا للدورتي ملحوينه هنا حسن الشيخ محمود إلهي هرتها كوجرب جو قف وحواي وإن له دعية محاها هاي مستر جواري يا رئيس وزراء هذا لما قعابي دكتور عبد الشير ساعد إن إلهي محوها يجنا دمان تدكو قرب كلام وحن أصلا نقنا يا دنا عنيك هوينك ولا يقطعنا ولا رجال وأبتهين هوينك الصوماليات وحي الحدان إذا حسوسية إلى قبل نمدي كب الله إلى يمان توتنك وحق التاجن وعيبي واجي حرنا ماذا عنو معناه عن أدجالميني هوينك الصوماليات أي أحيان كل دهب كود جلاي أوسو الجميع ودن كامل waxaa kaloo intaas dheer haweenka Soomaaliyeed hubkooda ayay macnaa hubkooda waa codkooda buraanburkooda Ilaahay siiyay ayay macnaa ku taageerayeen halganka waqtigaas jiray waa la soo dhaafay haweenkayni markii waqtigii kacaanka waxay soo mareen iyagana maaragtay muxuu ahaayay waxyaalo fara badan ayay wax ka qabteen macallimiin ay ahaayeen ilaahay waxay gaareen inaan noqono sida asli xasan cabaade inaan noqono muxuu ahaay duuliye oo diyaaradeed marka macnaa waxaan soo marnay halgan badan oo la koobi karin dagaal ayaa dhacay wixii la soo qax caruurta oo badnaay oo waxaan la leeyahay leen stand mother ama single mother kulligood wada haweenay ahaayeen haweenka ama gudaha ha ahaata ama dibadda ha ahaata taariikhda Soomaaliyeed waa xusu doonta waxa ay ka qabteen gudaha wadankii dadkii wax bartay si ay ciyaalkooda u nooleeyaan suuqa ayay wax ku gadgadi jireen waa la ogyahay markaan halkaan imaanana barafkii qabowgii waxa la kici jiray muxuu ahaayay haweenka ayay u badnaayeen walaalayaal haweenka Soomaaliyeed waxa ay qabteen wax inta lagu soo koobi karo ma aha waxaan ka rajaynayaa dawladdan cusub oo waliba dhawaan la dhisi doono in ay haweenka qayb ka qaataan boqolkiiba 30 waxaan la siiyay boqolkiiba 30 boqolkiiba 30
waxa waaye muxuu ahaayey boqolkiiba 30 ayaa nala siiyey ilaahay hadda waxaan maraynaa boqolkiiba 15 laakiin waa soconaynaa halkankayna waa wadaynaa saas aan ku wada soconaa shiribkii heesihii wadaniga iyo waxyaabo badan maadaama xafladdu ay iminka weli sii socon doonto oo markaas khudbadihii ugu horreeyay hadda aan ku guda jirno khudbado kale ayaa dib markaasi aad ka maqli doontaan laakiin dhinaca khudbadaha qaybta hore waxaan ku soo xiri doonaa mid ka mid ah odayaasha gobolka Utrecht isla markaasna si weyn loogu yaqaano gobolkan iyo waddanka Netherlands wax badanna ka og arrimaha Soomaaliya oo lagu magacaabo mudane Cali Xarash kusoo dhawaada waxaan salaan gaara u soo jeedinayaa dowladdii tagtay ee Sheekh Shariif oo madaxda ka ahay taasoo suuragelisay maanta in uu waddanka gudihiisa ka dhaco maaragtay doorasho xor ah oo si dimuqraadi ah la isu soo doorto oo ay ku yimaadeen maxaan ku yiraahdaa madaxweynaha maanta aanu halkaan uga xafladaynayno Xasan Sheekh iyo dowladdiisaba haddii aanay maaragtay jirin dowladdii hore ma suuro gasheen maanta in maaragtay ay ka dhacdaa 42 sano kadib doorasho xor ah waddanka gudihiisa waxaad ka war haysaan inay dowladihii hore ee ka soo bilaabo Ali Mahdi maxaan ku yiraahdaa Cabdiqaasim Cabdullaahi Yuusuf kulli waxay ka dhacayeen dibadda wixii suuro galiyeen waxay ahayd dowladdii Sheekh Shariif in maanta ay dhacdaa in maaragtay waddanka gudihiisa ay ka dhacdaa doorashadaasi okay ayagu waa mahadsan yihiin waxaan soo dhawaynayaa dowladda cusub ee madaxda uu ka yahay Xasan Sheekh dhinacii khudbadaha waa kusoo laaban doonaa khudbado fara badan oo dhinacyo fara badan taabanaya ayaa halkan laga soo jeedin doonaa dadka khudbadaha jeedinayan way badan yihiin waxaa inoo jooga fanaaniinta dhinacooda inaan u laabanno heesta iminka soo socota waxaa qaadaya Cabdi Baadil laakiin waxaan ka codsanaynaa hooyooyinka Soomaaliyeed ay ku saabsan tahay heestaani anigu siyaad bare Allah naxariisto khudbadiisii waxaan xasuustaa mar uu lahaa xorriyadda haweenka Soomaaliyeed inay qayb ka qaateen waxa lagu garanayaa ragga markay dagaalamayeen gadaal bay taagnaayeen oo ka fulayga markuu soo jeestisida oo dumarka arko dib uu noqonayaa isleeyaan in fulayga waa ka uliisa marka heesta waxay ka sheekeynaysaa dhaqamadii in weligood ay habluhu ahaayeen dad wax qabta kartidooda aqalada sida loo dhisin jiray ya marka af Soomaali waxoogaa dadku cusub ee dhalinyarada ah inuu ku yar adkaada laga yaabaa inay ciyaartaan maaha waa inay dhuuxdaan markii hadda la soo qaxay xitaa Talyaaniga la yimid raggii ayagoo difaysan oo dhibaataysan saa ayay soo dhaweeyeen gurigii bay wada seexiyeen markaas waxay ugu bedeleen taxi laba taxi ay socday waa ya mar wanaagsanin أنا تيما كديدية هاس بان سمي هاس كان مركا وأنا ودي كسر إيش ده ألوكا ألوكا الله الصومالية ألوكا ألوكا الله ألوكا ألوكا الله الصومالية ألوكا ألوكا الله والله ما هو رانو ويجي نولو شوية هاليران نهبي عبد اللي حاوطاكو هكذا كدي قوانمو مهل مامي كريني ألودا ألودا الله الصومالية ألودا ألودا الله والله ما هو رانو ويجي نورو شوية اليران نهبي عبد اللي حاوطاكو أقل كدي قبنمو مهر نامي كريني ألودا ألودا الله الصومالية ألودا ألودا الله رئيس الوزراء سعيد
iyo waxaan ognahay professor jawaari dhammaan waa dad wada aqoon leh laakiin haddaan yaro is wada fiirino waddanka isbeddelka ku dhacay waxaan fahmi karnaa jawaari inuu fahmi karo dadka diaspora ee bannaanka ku nool siday u soo noolaayeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay muddo u kaan dhawaayeen waddanka gudihiisa waxaan rabnaa waan halkaan rabnaa inaan talo uga sheegno ah heystaan arkayna hadda lama huraan inuu waddankeena yahay waa looda ogyahay waxaa jirta anigu waxaan ka mid ahaa dadkii muddo badan waddankan ku noolaa waxna ka soo bartay 92 ayaan waxaan bilaabay karyarii ugu horreeyay anoo aad u waxaad dareemaysaa waddan haddaadan u dhalan si kastoo aad u fahanto inaad waddanka ka tirsan tahay inaadan noqon karin kalar ahaan iyo aqli ahaanba annagoo dhalinyaro ah ayaa maalin waxaan dhex marayna magaalo tuula ah waxayna ahayd xilligii kristan oo markaas intikalaas la filayay 3 wiil baan ahay oo Soomaali ah nin odaya naga hor yimid si kaftan wuxuu noo yiri maxaad meeshan caaw u dhex maraysaa tuulada waana tuulo aan ka tirsanahay oo aaminsanahay inaan aniga aan ka mid ahay dadka bulshada marka kaftan ahaan markuu arkay inaan qaldanahay dad madownahay ayaa waxaan ku dhahnay war anaga waxaan ka tirsanahay istiraadkaas iyo familkaas laakiin si kaftana waxaan u dhahnay waxaan naga lumay ninkii sintikalaaska ah annaguna waxaan nahay 3 qofood isku aragtibeeda waa nala yaabay يعني حقيقتي ما أنت على قبل لابو وحن أولادي باسبور كسو شهادة كسو قاتو أنا عسكستان سنوي أنا مفكر إنه هولنديس. ولي وحن بتماع كذي جرنا قيبي قد بدها مسؤولين تا هل كان فريدا يسوع جدينين إنك وحن جعل هاي إن ميكروفون كسو دويو ميت كميدا هواين كسوماليات وسيادة مركز اللوية كان وطن كسوماليا isla markaasna diblomaasi ka shaqeyn jirtay safaaradda Talyaaniga Nairobi iyo safaaradda Talyaaniga waddanka Nigeria Lagos isla markaasna ka mid ahayd dadkii wax ka soo dhisay baarlamaanka hadda jira ee Soomaaliyeed magaalada Muqdisho mar dhow ka timid isla markaasna isbeddelka Muqdisho ka dhacay wax badan ka og waxay ka mid tahay dadka ururada ka shaqeeya ee waddanka Netherlands ku nool waxay madax ka tahay ururka la yiraahdo iftin ee ka shaqeeya isdhexgalka bulshada dooraysa Salaado Cali Maalin marka waxaan caawa halkan horta mahad uga jeedinayaa gabdhihii iyo raggii halkan xafladan sharafta badan soo qaban qaabiyay ee reer Suusti iyo Baaran iyo maxaan ku sheegaa Amersfoort aad baan u ahaa mahad uga celinayaa waxaan kaloo haddana salaamayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Professor Xasan Sheekh Maxamuud Culusow iyo xaaskiisa waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha Professor Saacid waxaan salaamayaa Maxamed Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan salaamayaa dadkii reer Muqdisho oo aan muxuu ahaa muddada 3 bilood la soo noolaa runtii xafladda caawa waa xaflad aad u qiimo badan 3 bilood aan joogana runtii aniga hal xabad dhagahayga kuma dhicin magaaladana muxuu ahaa caadiyan loo dhex socday wax technique iyo wax isku waardiyeynay iyo wax isdilaay iyo wax dhibaato ah midna kama soo arkin runtii waxayna aad meel aad u degan dadkii oo qurba joogta meel kasta from muxuu ahaa Australia America Canada Holland meel walba oo Europe iyo muxuu ahaa America kamidna waa laga wada yimid waxaana la xiiseynayay isbedelada ka dhacaya iyo dhismaha magaaladii Muqdisho kabitaalihii ummadda Soomaaliyeed wanaaga iyo shacniga ka muuqdo qof walba muxuu ahaa farxadaas ayay dareemaysay badan halkaan ku sugan inay ku cusub tahay laakiin waxaan jeclahay in magaceedo maadaama ay tahay qof si aad u buraanburo magaceeda aan halkaan ka sheego si ay halkaan u soo istaagto hablo fara badan oo jecel buraanburkan ay ugu faa'iideystaan buraanburkeeda quruxda badan iyo weliba qaabka markaasi ay ugu luuqayso waa mulki xasan ode suge ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الله كوغو دهكايو دورا شاهد كتمت
الله كوكوتي قيو دور شهد كتمت حلك الله سهريتو كانت رجولس دذال بعدني ودريه البلغة ربا Somali iskuduhub lideeda la doonaya dayar taacasaheeyaha hoo in badan dibdhacay duruusta inahay dhigtaan baa la doonaya dilka saxafiyiinta kanihigayga waa damqiyay ceelasha dhaxala haystay biyaha hoodii oo durdura ceelasha dhaxala haystay biyaha hoodii oo durdura oo daharehe caafimaadka la doonaya inaan la dabar goyn dhirtana waa la doonaya damiir hal adag layo dowladoodun adag wixii dulduleheladaha ciidamada u dira ما شاء الله بهن مرتيها كوكو تراهيا حلك الله دورت ربي جيها كولا دبرو شو بهدا تمان تمان كوالي وين مانتا تمان تمان كوالي بنالي مانتا تمان تمان كوالي وين مانتا maadaama telefoon ku hadlayo oo meel dheer oo ka soo hadlay magaalada Muqdisho xilligan ay u tahay 10 saac habeenimo oo shaqo badan ku jiro oo daalan yahay si khudbadiisa aad uga faa'iideysataan waxaan idin ka codsanaynaa inaad dhageysataan hambaliyadiisa iyo waxyaabaha markaasi oo idin kala hadlayo mudane ra'iisul wasaare Dr. Saacid dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa halkan fadhiya oo caawadan ku sugayay xafladanna ay u dhigeen jaceelka wadankooda ay u qabaan iyo waliba ayagoo taageersan in kumeelgaarkii laga baxay isbedel wadanka uu ku yimid si aad markaasi u ruuxaya caleemaha nabadda iyo waliba calanka Soomaaliyeed waxaan u jooga fanaaniin iyo odayaal kale oo wadanka si aad looga yaqaano iyo waliba ururada bulshada wadanka oo dhan meelo fara badan la isugu yimid xafladdu waxay ka dhacaysaa magaalada Suus ku soo dhawaanaysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مولى يعلي برو وحامل كذا وكسران وسلام الإسلام كان وحامل كذا محمد حيان الجلال كبرن أو أبو كابتن سومالي وصلا وتوفي سلام مسكين إلى حوشين إلى مدارين وقفتان إلى مجرد استخدام أو المتشتان إلى حوش عينو عينو يحولها أن تجمع أدخال وذكي سلاح أيام أخصصي aad ugu dambeyn kala maxamadayna waxaan idin ballanqaadaynaa sida aad kalsoonida noo tusteen inaanu idinkugu shaqayn doono inaanu Soomaaliya ay la simanto beydkeed in dadka Soomaalidu uu ka baxo xulkiya iyo barakaca iyo gaajada iyo abaarta inaan u hawlgeli doono inaad ilmihiina ammaanka ugu soo laabataan ilmihiina waxbarasho ay ka helaan meelihii Soomaaliya oo quruxda badnaa waxaad la sidan tihiin dadka bini aadamka oo xaqa u leh inay guryahooda iyo dalkooda ku raaxaystaan waa iguraysaa waana ka samahay inaad yurubba faraheeda qaxooti ku tihiin qabow iyo dhawaasha markii yaaki kasta siday ii taabanayso saacadda hadda aan igula hadlayaa waa 3 iyo 40 daqiiqo waqtiga Soomaaliya
ومعنو طبقي ساعة أو طبقنا في الوضع وقت الصومالية لكم أيضا أنني مدحونوه ساعة عن باشرات الصومالية شكرا ساعة عن الصومالية وإنا تفرقية كبحرة وإنا دركي نرد صوارك وإنا نرد بواقبة دركي نرد صوصارك وإنا نحدثك إلى رميتك أي حق أمي أي أبو الشعب إلى حين نقول إلى أن نقطع قدوتي وترفض صومالي كل عمل صومالي من كي ترد ونأكسن شرف تذكر وأولوها الرئيسة أرحمه من كي نعلمه سيدا معنا عن حيوان ومضنا ونقول تنين صومالي يستدر كنعور ونقول تنين إلى نرد يخومر ذلك المجالسين إلهي إلى الجيسة ودكيكينا وكسر صوماليا ومال بالكسر بيت دونتا دعوك عالمك أو أيامك تحيل بيت نظن دونتا يوما يلكو قبضي شافر فالبنيه نيمك يعرويه بكسر عرض دونتا وحانقوم بالكلام إلى أن ننقطع على الناشا يمكن تغييرنا والوضعيه إلى متعطف خاصة أن يورو في صوماليا وموراته وليس أنه يوجد مع سلطين أكثر من كده مع بقايا الوحشة رئيس الوزراء جمهورية ديمقراطية الصومالية مدن عبد الفارح شمدون دكتور سعيد oo nagala qayb galay xafladii quruxda badneed ee maanta aan caawa ku qabanay hoolkan ku yaala magaalada Suus waxaan halkan ku tagay inaan u mahad celino maadaama kaamirada iyo wariyaha halkan ay joogeen telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV oo si aad ah uga qayb qaatay xafladan gaar ahaan wariyahooda عبد الحكيم الكتاجة وسيادة مكاس السجوهولي إن حفلتني أي إن عكامرة أي ولبا إن نسكت بريد كأي قطان والله runtii arrinta caawa halkan ka dhacday waa arrin aad iyo aad u qurux badan sida adika laftigiina aad arkayseen dad Soomaali ah oo fara badan oo ka yimid waddankooda qaybihiisa kala duwan ah ka soo qayb galay dadku runtii aad ay u faraxsanaayeen waxayna ku faraxsan yihiin isbeddelka Soomaaliya ka bilowday kaasoo ahaa bilowgii baarlamaankii la doortay gudoomiyihii baarlamaanka la doortay madaxweynihii la doortay prime ministerkii oo aan ku dhaho maaragtay waxaas ku qiyaasi karaya لأنه وحوي أنت اسكو تمد مالها أكيدين جوالات فوق سيدا أو فرحسين يهين وليبو وحا أنت سيدا رئيس الوزراء أو ستوس ولا هذا يبقى أمدا مركز درين كي آدي أي أسرية magacay waa Shakra Xaaj Cabdulaahi dareenkay wala maanta aad u faraxsanahay maadaama aan helno dawlad fiican wadankii professoriyaal ah wada helnay waxaan aad ugu rajaynayaa in wadankeena uu noqdo bir waqtiga ugu dhow in aan helno nabad waarta gaarta goboleedena oo dhan anagana ku naqano wadankeena saas ayaan jeclahay waxaan kula talinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadanka ku koray waxaan kula talinayaa inay dhaqankooda haystaan luqadooda haystaan dalkii ay dib ugu noqdaan diintoodana ay si fiican u qabsadaan ani magacaygu waa Yaxya Aljaran dareenkeena maanta mid soo koobi kara maaha meesha intaan Soomaaliya meesha isugu timid dawladdan taageerayo iyo rasuulaha cusub aad iyo aad ugu faraxsanahay dareenkan meeshan maanta mid soo koobi kara maaha marka waxaan rajaynaynaa dawladdan tii oo خير قبته يتي أو ودك نوع يسأل إنه الله كدير كان وضل برواقة لكن أن أقول الله يقاتشو وحوي مركا وحوشينا دولة السعوديين اللي كجارسين كانوا وحنوشينا دولة ذاتك الصومالية ولي عدالة مرة دمين ثاني ما أنت داخلية لقات إلى ما أنت عدالة مرة دمين أنا إذا نهاية وحن إلهي كذا شيء كوي عدالة لنا نسير لها هنا الوطن سوق القادية لدن مقعي ولا أسل أحد عوكي وحن لايه الدولة همبلية هجوكتو وحن قار هاد ومهد إلينا إياه إذا الوزارة هنا عاون وقتك دير نلقاتي إلا سو هاد سجن وحن لنا بوليسو intaas waxaana kugu dhan barnaamijkii lagu soo dhaweynayay isbeddelka Soomaaliya barnaamijkan
ayaa wuxuu idinkaga imaanayay magaalada Suus ee waddanka Holland waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil waxaan inoo xirinayay saaxiibkay Cabdullaahi Taajirow intaas iyo nabadgelyo